أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. نعمان أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود. نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود. فما ضعت فيه ولا ضدت ذرعا فما ضعت فيه ولا ضدت ذرعا فكيف ورب علي يجود. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا عالم الخفية ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضية. يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية. يا مسكن الرعب الخائفين أهل التقية. يا من حوائج الخلق عنده مقضية. يا من نجى يوسف من رق العبودية. يا من ليس له بواب ينادى ولا ساحب يخشى ولا وزير يعدي ولا غيره رب يدعى. يا من لا يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا. أعطنا بسؤلنا إنك على كل شيء قدير. وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى موضوع نعاوة وصلاة قيمها أي صلاة لا هاي مقامك أي دينت أوجرت صلاة يعني إن شاء الله تعالى قصوا قادم دونا موضوع صلاة ولا ليل والركن لبعض أركان إسلامك. صلاة وعماد الدين دين إسلام كثير كذوي. صلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. إلهي إيم أدونك حريرك كدحيو وصلاة. وحو الرسول كليه صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فقد أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صلاة ودين إسلام كثير كذوي. صلاة قفكي أوغو سيداي أهيد أتو كذوي إقامته. من صلاها لما أرنا فمن أقامها صلاة قفكي أوغو
oo siday ahayd u tukado arkaanteedii shuruudeedii sunanteedii buu kamilay mubdilaadkii buu ka ilaaliyey faqad aqaama diin waa qof diinta islaamka nooleeyey waman tarakahaa salaada qofkii ka tago faqad hadama diin diinta islaamka buu dumiyey qofkaas salaadu waa awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama waxa ugu horeeyo oo addoonka la weydiiyo camalkiisa qiyaamaha markii la kaliyo ilaahay lasoo hor istaajiyo waa salaada salaadaasu hadday taam noqoto waa la aqbalayaa acmaashiisi kaloo dhanna waa la aqbalaya salaadu hadday hallowdo waa la radinayaa qofka waa lagu radinayaa salaadii camalkiisi kaloo dhanna waa marduud yuu noqonaya salaadu waa afdalu cibaadati lbadan cibaado la sameeyo camalka ugu fadliga badan weeye salaadu waa waajibkii ugu horeeyey ee ilaahay dadka muslimiinta uu ku waajib yaalay tawxiidka markay qaateen oy iimaankii qaateen oy islaameen camalka ugu horeeyey oo la faray waajibka ugu horeeyey ee lagu farad yeelay waa salaada wey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aayadda noogu caddaynaya fi suurati huod salaada wujuubkeeda iyo waqtiyaha ay waajibayso wa aqimi salaata darafay nahaar salaada oog nabi maxamedow salawaatu ullaahi wasalaamu calayh darafay nahaar maalinta labadeeda gelin darafka hore salaada subax baa ku jirta waa fajarkii darafka labaadna waa duhurkii iyo casarkii maalinta labadeeda gelin wazulafa min alleyl qayb habeenkii ka mid ana salaadii tuko oo og waa maqribkii iyo cishihii waa shantii salaadood marka ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanaadku waxay tirtiraan sayi-aadkii bay tirtirayaan qofku hadduu dembi ka dhaco hadduu dembi la yimaado hadduu wanaag ka dambaysiiyo xasanadaas iyo wanaaggaasu waxay tirtirayaan dembigii ka horreeyay ina alxasanaati yudhibna sayi-aat sayi-aadkay baabi'iyaan وكو رسولك عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي أمرني وأتبع سيئة الحسنة تمحوها سيئة هديك هذا عالو حسنة راعي تمحوها ويتريسا كفارة يقول marka dunuubta iyo xumaanta qofka ka dhacayso acmaasha wanaagsan baa lagu dhaafaa hadduu qofku ka dambaysiiyo acmaasha waxa ugu horeeyo dunuubta lagu dhaafayo mukafiraadka ah salaada way inna alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dhikra lidhakirin waxa la yiraahdaa aayaddan sabab nuzuulkeedu wuxuu ahaa nin baa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam iyadoo salaada casr waqtigeedii uu soo dhow yahay ee salaadii waqtiga la aqimi rabo wax yar ay ka dhiman tahay ayuu masaajidka soo galay markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahay oo dembi baan ku dhacay dembiga uu ku dhacay muxuu ahaa ninka dukaan buu lahaayo bakhaar buu lahaa gabar socotaa u timid ninkeeduna maqan yahay oo jihaad ku maqan yahay
timir bay doonaysay timirta qayb banaankaa la dhigaa si ay dadku u arkaan in dukaanka timirtaada soo ma qofkuna waxaa laga yahay dukaanka hortiisuu fadhiisanayaa marka waxay ku tiri timirtan iga iibi wuxuu yidhi timirtan banaanka taallo xoogaa dabayshaa ku dhacayso saa uma fiicne midda gudaha ku jirtaa fiicane gudaha gal ad aragti midda gudaha ku jirta gudihii bay gashay markaa markay gudaha gashay ayuu markaa dhunkaday intaa bas buu sameeyey isla markii wuu isgartay oo markaasuu usoo cararay masaajidku yimid waqtigii salaada oo aan weli la aqimina wax yar ka dhiman tahay masaasuu rasuulka u sheegay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo dembigaasa ku dhacay wuu ka aamusay rasuulku calayhi salaatu wa salaadii buu galay salaadii markii laga baxay ayuu ninkii u yeeray aayaduuna ku dul akriyay aayaddaa soo degtay markaas wa aqimi salaata darafay nahaar salaada tuko og maalinta labadeeda gelin wa zulafan min alleyl iyo qayb habeenkii ka mid ah waa shantii salaadood markaa oo darafka hore waa salaadii fajarka maalinta gelinkeeda hore laana maalinta sharciga waxay bilaabataa fajarkay ka bilaabanaysaa gelinka dambena waa duhurkii iyo casrkii qayb habeenkii ka mida tuko waa maqribkii iyo cishihii shantii salaadood tuko ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanadu waxay tirtirtaa sayi-aadkii markaa ninkii jamaacadiibuu wax ka tukaday salaadiibuu tukaday soo maa waxaa dembigii aad ku dhacday waxaa kafaaro u noqonayso oo tirtiraysa camalkii saalixaad la timid waa salaaddii aad tukatay markaasu rasuulka ilaahayo ma un aniga keliya ii sugnaatay arrintaas maya lijamiici ummatii buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadayda oo dhan qofkii xumaanu intuu ka dhaco khalad ka dhaco markaa wanaag la yimaado sidaasaa loogu dhaafaya xadiidka waxaa la mid a in salaada yani aayadda macnaha ay tusinaysa waxaa la mid a in salaadu ay tahay kafaaratu dunuub dunuubta yani lagu dhaafayo imaam bukhaari iyo muslim baa waxay saxiixooda ku warinayaan abu hurayra laga warinaya radia allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam low ana nahran calaa baabi axadikum yaqtasilu kula yawmin 5 maraat hal yabqa min daranihi shay axad adinka idinka mida gurigiisa iridiisa hadduu webi marayo oo webigaana 5 jeer ama 5 goor uu ku qabaysto maalintii hal yabqa min daranihi shay ninkaa wasaqdiisii waxba ka baaqi noqonaya nin maalintii 5 goor qabaystay wax wasaqa jirkiisa ma ku baaqi noqonaya qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii laa yabqaa min daranihi shay nin 5 jeer qabaystay maalintii wax wasaqa jirkiisa ku hari mayso faqaala wuxuu yihi markaa nabigu fakadalika mathalu salawaati alkhams sidaasoo kale waxaa la mida salaadaha 5 ah ilaahay wuxuu ku tartirayaa oo ku dhaafayaa yacni dunuubtii iyo waxyaalihii qofkii uu galay yaa ilaahay ku tirtiraya imaamu bukhaari iyo muslimba waxay saxiixooda ku warinayaan wuxuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar wayajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaati alcasr waxaa dhexdiina isbabedelayo yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyl wa malaa'ikatun binnahaar maalintii malaa'ig baa idinla joogto camalkiina iyo waxaad samaynaysaan fiirinayo eegayo habeenkiina malaa'ig baa idinla joogto way isbedelayaan wayajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaati alcasr salaada casr iyo salaada fajr bay isbedelayaan oo kuwii habeenkii baryay waxay baxayaan salaada subax oo lagu jiro fajarka oo lagu jiro
kuwii maalintii joogayna waxay baxayaan waxaa imaanaya kuwii marka maalintii imaanaya fajarka imaanaya salaada casr markii la gaaro kuwii maalintii joogay baa baxaya kuwii habeenkii joogay baa imaanaya waxaa kor noqonayo samada u kor noqonayo kuwa idinla baryay habeenkii idinla baryay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam fayas'aluhum rabbuhum wahuwa aclamu bihim ilaahay baa weydiinayo su-aalayo asagoo ka og oo ilaahay wax walbaba uu ogyahay kayfa taraktum cibaadii addoomahaygii sidee baad uga soo tagteen bal ka warrama xaalkooda siduu ahaa fayaquuluuna waxay leeyihiin ataynaahum wahum yusalluun wataraknaahum wahum yusalluun ayagoo tukanayaan u tagnay ayagoo tukanayana waan ka soo tagnay salaada cashir oo lagu jira ay yimaadeen waa qoladii habeenkii baryayay salaada fajar oo lagu jirana way baxeen ayagoo tukanayaan u tagnay ayagoo tukanayaan ka soo tagnay salaada oo lagu dadaalo oo weliba jamaacada lagu tukado shahaadadaas ay leedahay malaa'igtu ay ka markhaati kacayso markhaati bay ka noqonayaan shahaadada malaa'igtu ayaa markhaati ka noqonaya cinda rabbihim ilaahay asagoo wax walbaba uu og yahay wax ka qorsoon uusan jirin wey cabdullaahi ibnu mascuud baa wuxuu leeyahay radia allahu canhu rasuulka ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan yaa rasuul allah ayu lacmaali afdal camal la qabto maxaa u fadli badan qaala wuxuu yihi nabigu asalaatu calaa awali waqtiha salaada oo waqtigeeda lagu tukadaa ugu fadli badan camal la qabto camal la qabtoo la sameeyo o dhan waxaa ugu fadli badan salaada oo waqtigeeda lagu tukado qultu waxaan idhi buu yidhi uma ayun maxaa ku xigo qaala wuxuu yihi nabigu biru lwaalidayn labada waalidoo baari loo noqdaa ku xigto maxaa yeelay qofku markuu xaqullaahi la yimaado xaqa ilaahay uu oofiyo cibaadadii uu ku dadaalo makhluuqa xaqooda waa inuu guto dadka xaqa ku leh dadka xaqa ku lehna waxaa ugu xaq weyn labada waalid wey an ishkur lii waliwaalidayn ilaya almasiir baa ilahay le qultu waxaan idhi bu yidhi uma ayun maxaa ku xigo qaala wuxuu yihi nabigu aljihaadu fi sabiili illah ilahay wadadiisa oo lagu jihaado imaam bukhaari baa xadiidkaa saxiixiisa ku warinaya salaadu walaalayaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam kurba kastoo ku timaado markay arrin ku timaado baadara ila salaat kaana idaa xazabahu amrun baadara ila salaat mar alla markay nabigu mulug qabato salaad buu geli jiray markiiba wuu tukan jiray wastaciinuu bisabri wasalaat kaalmaysta baa ilaahay leeyahay bisabri wasalaat arrin kasta markay kugu timaado markaad wax doonayso hadday wax kula soo gudboodaanaan waa nina ilaahay ula laabato subxaanahu wa tacaala wafiruu ila allah wuxuu jeclaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay la munaajoodo marka uu salaada tukanayona salaada wuu ku raaxaysan jiray waqtiga salaada markii la gaaro wuxuu odhan jiray arixnaa yaa bilaal bilaalow noo raaxeen salaada waqtigeedii baa la gaaray waqtigii aan ilaahay la munaajoon lahayn subxaanahu wa tacaala salaada noo aadaan wey arixnaa yaa bilaal salaada waxaa loo baahan yahay maadaama ay tahay camal la qabto camalka ugu fadliga badan waajibkii ugu horeeyey ee ilaahay nagu waajib yeelay subxaanahu wa tacaala
hadhow qiyaamaha markii la tagay qofka la soo celiyo ilaahay la hor keenana camal la weydiiyo camalka ugu horeeyo salaadu ay tahay awalu maa yusalu bihi alcabdu yowma alqiyaamati as-salaa waa camalka ugu horeeyo la weydiinayo miftaaxu lcamal weeye salaadu mar hadday sidaa tahay salaada waa inaan ku tukanno salaada cilmi inaan ku tukannaa la doonaya siday ahayd inaan u tukannaa la doonaya salaada salaaddu waxay leedahay arkaan bay leedahay shuruud bay leedahay sunnooyin bay leedahay mubdilaad bay leedahay burinayo wax buriyay leedahay salaadu oo in laga ilaaliyo loo baahan yahay salaadu arkaan bay leedahay 13 shuruud bay leedahay salaadu 8 sunnooyin fara badan ayay leedahay oo abcaad iyo hay-aad baa loo qaybiyaa sunanta salaada sunnooyinkeeda wax salaada dhexdeeda intaad ku jirto aada ilaalinayso iyo salaada intaada gelin wax aad la imaanayso salaadu mubdilaad buriyay leedahay wax buriyay leedahay oo in laga ilaaliyo la doonayo mubdilaatu salaad oo 12 hadduuna qofku ilaalinin axkaamtii salaada ama cilmiga salaada uusan baranin salaadiisu salaad ma noqonayso qofka salaada ka tegayo iyo qofka salaada halaynayana waa isku mid imaam Bukhari wuxuu saxiixiisa ku warinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo masaajidka dhex fadhiyo ayaa nin soo galay markaasuu salaad tukaday halkaasuu ku tukaday salaadii markuu tukaday buu rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay rasuulku salaantii buu ka radiyey wuxuu ku yidhi fasalli fa innaka lam tusalli baadan tukaninayo tuko wuu ku laabtay ninkii salaadii haddana mar labaad uu tukaday wuu yimid haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salli fa innaka lam tusalli maadan tukanin ee tuko yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maadan tukanin saa waxaad ka garanaysaa haddii salaadu ay halaysan tahay salaad lama oran karo soo ma mar saddexaad buu ku laabtay 3 jeer markuu ninkii tukaday oo mid kasta uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam salli fa innaka lam tusalli ma aadan tukanina tuko markaasuu ninkii isdhiibo wuxuu yidhi yaa rasuul allah waladii bacahaka bilxaqi laa uxsinu gayraha facallimnii ilaahayga xaq kugu soo saaray baan ku dhaartay sidaa waxaan hayn anigu ma aqaan intaa un baan samayn karaa iga tabara ee facallimnii ibar markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii u tilmaamay hal ragcad buu nabigu u tilmaamay markaad istaagto fakabir buu nabigu yidhi takbiirso وصلاة حرة واقرأ ما تيسر معك من القرآن فاتحة المفسرة ثم اركع الركوع حتى تطمئن ركوع إلى أتكو حسيشو دقائق كديس ثم ارفع سوك الرقو حتى تعتدل إلى أدكاتو سعادة ويستاذ ثم اسجد حتى تطمئن إلى أن حسشوا دقائق ديسو ثم ارفع حتى تطمئن جالسا إلى أن فضل سفي عن وإكاته وفضل لبدا سجوده دحي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى أن سجودك وحسش ثم افعل في صلاتك كلها هكذا
صلاة هذا نسيها أتكو ركعات بو النبي أتل مامي صلى الله عليه وسلم مركز حكوية الصلاة هذا السيدة أتكو ننكا وحلو أمك عدري وحل إلى هذا حديث مسيء صلاتي مسيء صلاتي ننكا صلاة دي سهل لي وحل إلى حديثك وحل قادنا يا أركام الصلاة أنت يا رب حديثك صلاة قادنا لأن وحط المامي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة دي بقوت المامي لك أسيد أتكري قفكو هدونا صلاة وراجنين لما أوران كروتو كذا قف أن تكنب ولا مدين قف كتارك الصلاة كا يمدك مسيء الصلاة كا واسكمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي ماذا تكنين تكو قفك إنه صلاة وناجية لدنيا صلاة إنه علم هذا برتال لدنيا قفك صلاة إنه علم هذا برتال لدنيا لأن الشيء كستو واجبه والدين يا إلهي مركو نفرين سيدان قدر لهين ونصمين لهين با إلهي نوشي علم با إلهي سودجي إلهي كتاب ونسودجي رسولنا ونصر دري صلى الله عليه وسلم رسولك ونوع عدي سيدان نتكر لهين صلوا كما رأيتموني أصلي سيدان أنيق أتكني أتكذا سيدا أديكو أركتين أنا أتكني أتكذا ونبي ورني جماعة صلاة مركو كهد لي وحو ورني ليليني أولو الأحلام منكم دادكي نواوين علم قال أقومت لها يلحي صفكه ورعسوه قال وليأتم بكم من بعدكم dadka idinka dambeeyana adinku idinku dayanaya حتى النبي عليه الصلاة والسلام وحو سميي مر أسagoo saxaabada salaadiisa oo dhammaystiran tusayo kulligoo say u wada arkaan mimbarku intuu ku istaagay ayuu nabigu salaad ku tukaday istaagay wuu rukuucay wuu ictidaalay markuu sujuudi lahaana gadaal buu tilaabo u qaaday hoos intuu u degay buu gadaal tilaabo u qaaday markaasuu nabigu sujuuday iyo markaa calayhi salaatu wasalaam asagoo tusinaya marka aad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ihtimaam u siinayay cibaadada wa khaasatan salaada marka qofku salaada arkaanteeda inuu la yimaado wey arkaanta salaada inuu kamilo weeye qofku shuruudda salaada inuu qofku ilaaliyo wey salaada shuruudeeda waxaa ka mid ah shardiga koobaad ee ugu horeeyo ad-dahaara qofku waa inuu dahaarada ku dadaalo waa inuu dahaaro qabo dahaaradu waa maxay dahaaro waa inuu qofku daahir ka yahay labadii xadath iyo nijaaso الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء ويسوي واجبيه حدث كيربى لله قبيس وحي واجبيه حدث كوين وين قفك وإنه ظاهر هاي وإنه ويسقبه حدي قبيس أباهضه أو وح قبيس واجبين أو قبنا وإنه قبيس تصفي عن قبيس طلبات وإنه النجاسة ظاهر كيهاي بدن كيسة يقدر كيسة iyo meesha uu ku tukanay saddexdaaba waa inay daahir tahay marka dahaaradu waa rafcu lxadath wa isaalatu nijaasa xadadka waa inuu iska kor yeelo hadduu asqar yahay iyo hadduu akbar yahay wa isaalatu nijaasa nijaasadana waa inuu iska zuuliyo fi lbadani wاthawbi wاlmakaan dahaarada kaamilka markii qofka laga helo waa shardigii koobaad buu buuxiyey markaa
شروط الصلاة وحكم إذا ستر العورة طبعا عورتي سوينا أسطران ده ورجع عورتي سمركو تكنا يا وحدون تي لبد لو أنت ولا حاس جواد عورة ما كي صلاة تكنا هو بدن كذا ودن جميع بدنها إلا الوجه والكفين إلا الوجه والكفين وجهه يا لبد كفكلية لو قال يا هنا بني جير كذا كله هذول مال كصوبها صلاة ده حكم مجرد marka cawrada waa in la asturo satru al-awra istiqbaalu al-qibla kamida shuruuda salaada qofku markuu tukanayo waa inuu qiblada qaabilo yaqiinan aw dhannan hadduu xaramka joogo kacbada arkayo qibladu waa kacbade waa inuu arkayo bidhaanteeda hadduu ka fog yahayna jihadeeda waa inuu soo qaabilo شروط بيلادها صلاة سيدة صلاة وقت جيد وين وقرا شروط سيدة هي لادها شروط مركب وحل لهذا صلاة أنت اللي قلنا هرتات وين وقف شروط صلاة كوسي فوقه وين طهارة قاته عورته سأستره قبلة قابله صلاة وقت جيد وقرا شروط مركب وحل على صلاة أنت اللي قلنا هرتات اللي يدوني إلى بوحسن حديث شرط كم من الواير صلاة محبك مجرد ما صحيح أركانتنا وهي أي صلاة أي كدس نيدوي صلاة مركب قشوا واحد صلاة اللي قوم عابي هي أي صلاة موقال كذا أو هي أركانته فإنه لينا مركو الشروط أي أركان تكمل قفكو سنوي كصلاة سنن الصلاة وإنه كده ده صلاة سنوي كذا واحد كمل يعني صلاة ثواب كذا أي كمل يعني قفكو مركو تكنيه مدحيس وينو أستران ياهي كوفي وينو قمام وينو عمامات قبو صلاة تكنيه سنوي كصلاة وين تكبيرات كاكمدة تسبيحات كسجود هي الركوع هي تسبيح سنة يا كمدة التحيات كهرئية قنوت كاكمدة أقمك هي آذان كصلاة إلى هاي ما كملة صلاة السنوية ما إلى هاي سنن الصلاة إلى سنوية كصلاة لا تبادوت كمشوا صلاة الثواب كذبة زيادة يكمل نقول أو بدني وإنه لي ماذا قفكو خشوع صلاة صلاة وحيالها كملة وحكملة خشوع حكملة وقفكم مركو صلاة قلب إلهي بوهر استاغي سبحانه وتعالى وإنه قلبي سكسو حاضري إنه إلهي هرتاغي ولا مناجوني وحا آخرنا قردة آخرنا أذكارته آخرنا معنى هذا وإنه كنت تدبره وإنه كنت تدبره مركز صلاة دي صلاة نقنسة يقول رب سبحانه وتعالى إلهي وحوليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون مؤمنين تبا الليباني مؤمنين تواكوا صفة كوباد ولغوت المعنى بحين غطي الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوة صلاة وذكو خشوع وقوة صلاة وذكو خشوع رسولكم صلى الله عليه وسلم وحليه قفكو إنو صلاة دي وتكنيا أسألوا صلاة دي سيلوغو قرن إلا ثلثها ربعها خمسها سدسها عشرها بنبي قاسي عشرها معناها هذا وحوي انت قلبك وحاضرك يا هاي با صلاة هذا لقابي قرية صلاة المرأة لمركة قش قلبك هدوس كتغو وهذا مركة واحد تكتب أدقلوي مصدح بعد مرة إذا مالله بعد مرة إذا قلبك ما اسكتغي
وقلف كاذبة اسكتها صلاة الروح ملك روح دي دمين باك مغان صلاة الروح دي باك مغان وعلي نبا جري dadkii hore ka mid ahaa oo marka alaab baa ka dhuntay waxba ka dhumay marka kuwa wax sheeg maarag yuu tagay kuwa faalka iyo wax sameeyo ama wax fiiriyo bar alaab baa iga dhuntay bar alaabtaas waxbuu fiiriyo wuxuu yiri meel hebla ka fiiri meeshii buu tagay male xaw ma yaalaan marka uu saga tagay wuxuu yiri kaas waxba kuuma sheegay waxba garanaya maxaa loo salaad buu iska galay markaas mar alla markuu salaadii galay shaydaankii baa ku soo xaadiriyay mar alla markaa salaada gasho waxa adawil ilaa sareedo dhan baa ku iimaanaya magda salaada dhexdeeda lagu xusuusanaya waxa ilaa sareedo laana xisaabadu dhaqaaqaysa wax walba shaydaanku qalbiga ku soo ridaya mar alla markuu salaada galay qalbigiisa ku soo dhacday meeshaas ama uga soo tagtay shayga markaas salaadii uu ka baxay markuu ka baxay uu orday halkii haduu tagay meeshii uu ka helay alaabta uu soo qaatay wixii ninkii uu yimid oo wuxuu niyo waxaad ogtahay mala shaydaankayga ku dhaamay dadka halugoyn buu leeyahay ma garad shaydaankayga ku dhaamay maxaa yeelay meeshuu ii sheegay waan ka helay laakiin adiga waxba ma ogid marka sidaas weeye mar alla markaad salaada gasho wax walba kugu soo xaadirinaya salaad iyo shaydaanku kugu soo xaadirinaya marka khushuuc baa la doonaya alladina hum fi salatihim khashi'un illa helo salaada walaalayaal وإن الإهل كنية المهنة كل الدلال إلهي سبحانه وتعالى وقرآنك كله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة إهلك الصلاة كل الدلال صلاة فرض كصبر وواجبك هي عباداتك هذا كل دالين وذا كصبرين ده لما إيمان كرتين ما ولي كرتين وحال لغاية بأهلك إلى صلاة كو أتكاتو إنها صلاة كرة دقاشا لدونية المها قوينة صلاة كو تربيس أهلك قوينة صلاة كو تربيس قلقوا وإنه يقرع عباده والدكم markuu asoo cibaadada ku dadaalayo ilmaha waxa u fududaanayso inay cibaadada la yimaadaan laana waalidkood bay arkayaan oo mar la arka tukanayo cibaadada ku dadaalay wa'mur ahlaka bis-salaat ehelkaaga salaada far wastabir alayha ku sabr salaada la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk waxa aan ka fikirnaa waa maxay maxaan ka fikirnaa rizqiga ka fikirnaa مثلا qofku haduu ilmo leeyahay haduu ehel leeyahay wuxuu ka fikirayaa risqigoodii sideen u biishaa maxay yani ha ka fikirin baa ilaahay leeyahay risqiga adiga kuma weydiinayno nahnu narzuquk anaga ku irsaaqayno wal aqibatu litaqwa ciribta wanaagsana dadka ilaahay ka cabsaday baa iska leh cirib wanaagsan baa u sugnaatay marka ma aha inaan ka fikirno oo risqiga biilkooda iyo yani nafaqadooda ilaahay uu kugu waajib yeelay laakiin ilaahay asaga ku ballan qaaday uu kugu waajib yeelay asaga laakiin ku ballan qaaday oo ku siinay laakiin awalan waa inaad ka fikirto cibaadada ehelka cibaadadooda waa inaad ka fikirto حاتم الأصم نيكي لورنجري سلف صالح كمد كأن عبادة بدن بوها وأنك اللي جوري وحجر الصلاة بجماعة إضافتي صلاة الجماعة بإضافة ما لازم والجماعة اللي ما تقول إضافته أما هذا الصلاة هذا كاتكتو صلاة بإضافة تكتيبه
وحي تعزيه ما أرجو ومصيبة ديني أصلات كاتك ومصيبة ديني دين تقديماتك هكذا على مصيبة هكذا على وحي تعزيه ما أرجو هذا ما أنت وعنو جيب هذول دم لها بوري عنو يرى صغير هذول دم لها مقالة ذلك جوجو دوي تعزيه لها وشيخ حاتم عنو باكر نتبع الله يرى الله ولا لي وضي مالها مصيبة الديني أين يجا تعزيه ما بوريتون أنا ما أنت هل صلاة هو يجا تكتو ولما إذا عنو بهذا الدنيا وحي يجا دربوا هل صلاة يجا يجا دربوا حاتم الأصل وحو يري وحن أركيب يري dadku inay naftooda u duleynayaan say adduunyo u heli lahaayeen waxay ku dadaalayaan inay adduunyada helaan inay kala badsadaan naftooday u duleynayaan ثم قرأت قوله تعالى بنغريه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دابة أرض كر كذا ما أهان إلا على الله رزقها إلهي بإرزاق يبلغ قادر رزق جد فعلمت أني من جملة المرزوقين دابدها سوي مخلوق وحرض كر كذا كوسع ونبى دابد ليلا كوا الله بلغ قاضي إن نكمل حيبان أقادي فاشتغلت بالله وتركت ما سواه إلهي بان اسكو مشغولية داعي سو وحي كالودن واسكا دافي حاتم الأصم dadkii salafka in badan adduunyada kamayna fikiri jirin diintu bay ka fikiri jireen cibaadadu bay ku dadaali jireen ilmahoodana ayaga ugu wanaagsanaa dadka ugu ilmo wanaagsanaa safar buu u baxay safar buu aaday marka ilmihiisiba way ooyeen oo waxay yiraahdeen aabaha wuu naga tagayaa yaa noo shaqayn doono oo isaga unbaa dee aabbuhu isaga unbaa waajibka ilaahay saaray oo ilaahay u soo dhiibaa waxay cuni lahaayeen reerku sooma marka waxay yidhaahdeen aabbahe hadduu naga tago safro maal uu leeyaho badana uu nooga tagaayana ma jire maxaan cuni doonaa gabar carruurtiisii ka mid aha hadasho waxay tidhi maxaad u ooyeysaan oo isku kurbaynaysaan ذهب المرزوق وبقي الرازق ذهب المرزوق كيل إرزاقه يباتغي أبه وأدون ولا إرزاقه إلهي با إرزاقه وذهب الرازق وبقي الرازق قال لي الرازق سيدي سوجوه نجمة تجيب أبه دوت واحد ما تعمله ده حاتم إلهي فيه قبل راسه إلهي وذرية دي سكان دقاي وعليه حاتم wuu baxay maalintii dambe isagoo maqan reerkiisina dee reer faqiir uu iska ahaay waxba ayna haysanin oy iska baahan yihiin waxaa magaalada ninkii imaamkii dhammaa ee ayaa soo baxay wuu baxay magaaladu ka baxayoo xoogaa wuxuu soo wareegay wuu lugeeyey tara talxiix buu soo sameeyey markaasuu soo laabtay markuu uu lugeynay wuu soconayaa dad badan oo dadkii dawladdiisa haya waaweynaana way la socdaan marka oon buu dareemay markaas wuxuu yidhi gurigan biyo noo weydiiya bal biyo qabow baan u baahnay guriga xaatam waya guriga hormaraya albaabkii baa la garaacay amiirku wuxuu leeyahay biyo qabow buu u baahan yahay ma haysaan nacam biyo qabow baa looga soo shubay ashuur looga soo shubay aada u qabow biyihii buu cabay markaasuu yidhi guriga kanayaa leh markaasaa le waa gurigii ninkii saalixa aada u wanaagsanaaye xaatamul asam la dhihi jiray gurigiisi wey markaasuu wuxuu yidhi waxaan dhammaantiin idin amrayaa wax alla waxa aada jeebka ku haysaan inaad keentaan nin madaxa dee iyo dadkii madaxda ahay oo dhan oo la socda oo nin walba dee xoogaa fiican oo jeebka ugu jiro lacagtii baa kulli la wada bixiyey markaasaa kiish idil oo lacagaha loo buuxiyey reerkii loo dhigay waana ka tageen xaatam wuxuu soo noqday
reerkii oo dee qani ah oo lacag aad u fara badan haysto ayuu soo noqday. waa sida ay gabadhu lahayd soo maha dee dahaba almarzuuqu wa baqiya alraasiq. kii la irsaaqayay baa tegay, allihii raasiq aha waa baaqi wey. naxnu narzuquk waalcaaqibatu litaqwa. cumar bin cabdilcasiis ninkii la odhan jiray yaa markuu dhimanayay baa waxaa lagu yidhi carruurtaada maxaad oga dhimanaysaa? cumar bin cabdilcasiis zaahid buu ahaa. waxaa lagu tilmaamaa markii siiradiisa laga hadlayo khamis alkhulafaa, waa ninka cadaaladiisa lala yaabay. 30 bilood keliya ayuu muslimiinta madax u ahaa. 30 bilood waa 2 sano iyo wax yar. cadaaladiisii baa meel kastaba gaartay. cadaaladiisii meel kastaba way gaartay. imaam caadila markuu dadka madaxweyne caadila uu fuulo, waxa la dadka reer miyiga ah way dareemayaan inuu nin caadila ummadda hogaankooda qabtay. maxaa yeelay xayawaanku xataa xooluhu badbaadinayaan, isma cunayaan. dadku wax iscunaya, makhluuq isma cunayo markuu imaam caadila uu qabta wey. xoolihii iyo dhurwaagii baa isdhex daaqayn, waraabihii iyo xoolihii baa isdhex daaqayn. cumar bin cabdilcasiis xoolo adduunya waxba kumuna falaynin. markuu dhimanayay ayaa waxaa lagu yidhi ilmahaaga maxaad uga dhimanaysaa? nin dhan oo madaxweyne oo dhintay baa tahay, wax xoolood haysata ma jiro, wax walbaba waa diiday. xataa mishaarkii uu ka qaadanayay maadaama islaamka uu u shaqaynayo iyo xataa diiday. markaasuu wuxuu yidhi carruurtayda inaan xoolo oga taga ma doonayo. carruurtayda hadday saalixiin noqdaan oo ilaahay caabudaan oo cibaadada ku dadaalaan, wallaahu yatawalla saalixiin. saalixiinta ilaahay baa weli u ah, wax dhiba ma arkayaan. hadday saalixiin noqon waayaan, maal ay ilaahay ku caasiyaan oga tegi maayo buhaan, oga tegi maayo. carruurta diintooda inaad ka fikirtaan la doonaya. maxaad oga dhimanaysaa inaad ka fikirta maa? waa inaad ka xanuunsato canuga hadduu salaada tukan waayo. hal qof oo reerka ka mid a haddaan gurigaas aan lagu tukanaynin, taa inaad ka fikirtood ka dagaalatood ka dhimataa la doonaya. leanna waxaa laga yaabaa in barakada iyo khayrka iyo risqiga iyo wax walbao dhan qofkaa keliya looga manciyo. leanna qof taariku salaada meesha uu joogo waa meel ilaahay caradiisa kusoo dhacay. marka waa inaad salaadooda diintooda inaad ka fikirto. awalan ilmahaaga iyo ehelkaaga waa inaad diintooda ka fikirto. laa nas'aluka risqa naxnu narzuquk waalcaaqibatu litaqwa. yaa ilahay le waalcaaqibatu litaqwa. ciribta wanaagsan waxay u sugnaatay taqwa. marka khushuuca inaan ku dadaalno. salaada xuquuqdeeda waa inaan dhammaystirno. waa inaan ku dadaalno salaada faradka. jamaacada masaajidka waa inaan ku dadaalno. jamaacada waa inaan ku dadaalno. salaada aad jamaacada ku tukatay iyo midda aan jamaacada aada ku tukanin 27 darajo isdheerta. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة اللي قلت كذا من قفك وكليت كذا وحي كفضل بلندها 7 درجة. جماعة وفرض كفاية. هدي وحده كذا لو هي ما انت قال لي وحكيت كذا جماعة كنت كذا لو هي ولا ود الدنبالي واجب وي صلاة الجماعة. جمعة هي جماعة وشعار كإسلام. قفكو هدونا صلاة الجماعة كلها دلالين بالشعار كإسلام كأردن إسلام كوح وكبو يعني وح علامات اللي قرتني شعار موجبة يجري
هذا مرنا بقى الجماعة بقى تكررين الدين الإسلام كنولين تهدي ونبى الله يعلي أدونا نفط هذا واضح يعني ثوابك أجرك قال كايو ذليسي يدين الإسلام كواجبك كاسر راب الله ودي بقف ضيع يقف ضيع الجماعة اللي بده له فواجب ويا جماعة قف وينه يبال مسجد كوحكة لو ما دسني صلاة الجماعة اللي بقولت وحقوقه الرأي اللورد يسوي مساجد كوحوي إن لقوته كذا جماعة لقوته كذا لقوت جماعة يسوي تعمير كمساجد كوحوه الرأي وصلاة قفكم بركة صلاة واجب كوينه كده ذلك سنة يا حيد وينه صلاة لقوته كذا جماعة وينه كده ذلك أهل كيسنا وينه كل ذلك المهيس وينه صلاة كل ذلك والجماعة كل ذلك meel fog haddaan joogno iyo meel dhow haddaan joogno salaada waa inuu soo socon qofku tilaabada uu salaada u soo qaadayo haddii uu gurigaagu fog yahay haddaad meel fog degan tahay salaada socodka aad u soo soconaysa ama aad soo aadayso tilaabada darajaa lagugu koryeelaya tilaabada dembi baa lagaaga ridaya habeenkii dadka salaada imaanaya وهو الرسول كله عليه الصلاة والسلام بشر الماشين بالظلم في الظلم مقدر قوة قصة عنيه بالنور التام يوم القيامة كل هبين كسرنا المريم زاد كسرنا المريم نور تام أو بشارة قيامة نور بيهليا جماعة وين نعمرنهم كده دارون جماعة يا جماعة أهل كيننا صلاة إنا كل دارون guryaheena inaan cibaadada ka oogno wey salaada faradka markaan xifdino sunantana waa inaan ku dadaalo salaadu sunooyin bay leedahay salaadaha faradka sunooyin ama sunan la yidhaahdo rawaatib la yidhaahdo leedahay raatibo oo faradka la socoto mid waa qabliyo way ka horeysaa midna waa bacdiyo oo way ka dambaysaa وسنن الصلاة بالليل أما رواتب الصلاة بالليل والله لباتن ركعات سنوي كرواتب تليل لباتن ركعات قفك وإنه كده ذاله أدو أولك رأي قفك وإنه ضمانت إنه تكذا وإنه كده لأن خيرك هي ثوابك هي أجرك ولا لا وإنه باهنا إن أدق دقنا للدنيا لبي لباتن ركعات يا وحالي الرواتب اللي فرض كي راعان صلاة الفجر كان لبر ركعات باك هوريس ظهر كأفر نوي كهوريس أفر نوي كدميسا وطبعا عصر كأفر باك هوريس مغرب كان لبا كهوريس لبا نوي كدميسا عشاء لبا كهوريس لبا نوي كدميسا ولبي لباتن ركعات لبي لباتن ركعات وحالي هذا رواتب الفرائض بل أما السنة نص يعني صلاة السنوي كذا رواتب الليل هذا راعي فضائل فرق بدل باقوس أرد صلاة الصبح لما ركعات ذو كهر رئيس وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها لما ركعات ذو صلاة الصبح كهر رئيس الدنيا ذي واحد إحياء ونبي كخير مدين لما ركعات ذو سنة هي صلاة الصبح كهر رئيس سنة يعني فجر كان والله ما ركعات أبو فضل قبل سنويك رواتب ذلك صلاة الظهر كأفر باكورس أفر نبي كذا بيسا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسده على النار قفك صلاة الظهر هرتيد أفر تكذا أفر نكدم بيسي جركيس إلهي نار وكحرمي وحفظ لي كبدين وتكادين سواء محل هداد بدبادين النار أدوك بدبادين لهين لقوقوا بلان قال قولك النبي صلى الله عليه وسلم رسولك صادق المصدوق هذا الكيس هو وحي إنها تكد لا شو يساعد نار توقع بدبادين صلاة عصر أفر ركعات كورس أفر ركعات كورس والرسول عليه السلام حديث صحيحة يا صحيحين كي السنن كما كسو أرورين
من صلى قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 قف الله أن حريستو عصر كورتيس أفرق عدوتو كده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومقبول قف لا كانوا باهي قف عصر كورتيس أفرتو كده الله أن حريستو وصلاة والوجه بركة سعداني ماذا متك نوقف عن صلاة بركة العقيمة يسوقها صلاة الوجه لغينا قدار كسوقات أما القيمة كسوقات أما إذا لسلام النقصان اعتماده قربات سنة كنيسة وإن صلاة آذانك وقت اللي جوه ساعة وإن في رسو آذانك وقت دي وإن تكسو هربرتو وقت اللي آذان يمزاتك أجوه بركة سنة سنكرتا وتكاري كرتا waxaa laga wariyey ibnu sireen ninkii la oran jiray maxamed ibnu sireen 40 sano weligiis mu'adin ma aadaani ilaa wa ana fi lmasjid anoo masaajidka ku jira buu aadaamayay buuri ibnu sireen dee saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii oo kale baba noqon karnee laakiin bal aan orodno xoogaa aan isku dayno khayrka loo wada ordayo dadkaas waxayba ahaayeen dadkii loogu bishaareeyeyba jannada ee wanaagsanaa casrigii looga yani khayriyada looga markhaati kacay oo quruntaas haddaad ka mid noqoto waaba quruntii khayrka looga markhaati kacay khayrulquruuni qarni uma aladiina yaluunahum saddexda qarni ee salafu saalixa la yidhaahdee yani khayrulquruun waa saddexdaas ayagii saas ahaabaa cibaadada ugu dadaal badnaa saxaabada kulligood ahluljanna ay ahayd kulligood janna loogu bishaareeyey ومع ذلك خيرك أيها دتك وجود هذا هبين يمان بيوتنا جرين بل صحابة إسكداي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله يا وإلهي سبحانه وتعالى أول دورتي يسوع التاجنا بلغيه سبراريه وصلاة تعليه مركي حقين جونا عنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإن انكفى وإن كد لأنه سنة كهر رئيس عصرك وإن كد رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 قف عصر كورتي أفرتو كده الله أنحريستو يقول لي مغرب كلا مرق عدود باكور رئيس لمنا ويكدم ميسا لمنا رق عدود المغرب ككور رئيس النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وهو كل أيها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صدح قرب كعلي لمن شاء وين مركها مركز صدح ومركو النبي عليه الصلاة والسلام كعلي وهدنا كعلي يوحكي يا إلا ما لا إني واجب نقطة سنة بوات كي يكلي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء وأنا كده نقول مركا آدم يفضل بدنتا وقتي النبي عليه الصلاة والسلام masaajidka markaa soo gashay markuu aadaanku dhaco waxaa loo malayn jiray baa leeyahay salaadii laga baxay oo sunnadii ka dambeysay la tukanayay markaa markuu aadaanka leeyahay qof la arka meel buu isku aadinaya markaasuu tukanaya qofkii markaa soo galo ama qofka reebiga ee markaa cusub magaalada ku cusub wuxuu u malaynaya in salaadii laga baxayba sida sunnada qabliyada ay ugu dadaali jireen saxaabadu markii laga baxo markii la aadaamo in sunnada la tukada ka horeyso taasaa la doonayaa markii laga baxo salaada 2 ragcadood baa ka dambayso cishaha hortiisa 2 ragcadood baa gadaashiisa 2 ragcadood baa labada ragcadood oo cishaha ka horeyso bayna kulli aadaanayn salaad labadii aadaan ba dhexdooda salaad baa hadii uu nabiga alayhi salaatu wasalaam marka aadaanka markii la aadaamo aqriga inta la gaarin 2 ragcadood 22 ka ragcadood raatiba leeyahay sunnooyinka fadliga badan in lagu dadaalo la doonayo ka mid ah maxaa yeelay salaadaha faradka ah markaad tukato ood ku dadaasho haddii wax u nusqaana kaa galaan salaadii haddii wax naqsi kaa galo sunnooyinka lagugu buuxinaya haddii aad salaadihii aad si fiican u aqoonin salaadaadii hadday taam ahayn sunnana aad ku dadaalaynin maxaa lagugu buuxinaya 70 ragcadood oo sunno ah waxa la salaad hal ragcad oo farad ah u dhikamaysaa وهذا سلوين كبديسو نقصي قالي وحبا لغو كبيا لغو كبيا سلوين كانوا فضل بدن باجرون
sunnada witrka la yidhaahdo waa sunnada habeenkii la tukado cishaha markii la tukado ilaa fajirka laga gaaro habeenkii baa la tukan karaa sunnada witrka witr baa la yidhaha waa sunnada salaatuleylka habeenkii lagu tukado hal ragcad baa u yar kow iyo toban ragcadoodna way u badan tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam weligii wuxuu tukan jiray kow iyo toban ragcadood buu tukan jiray waa salaatuleylka waa qiyaamuleylka weligii uu tukanaya waxay ahayd kow iyo toban ragcadood laba ragcadood buu u tukan jiray salaatuleylka laba ragcadood baa loo tukada salaatuleyli masna laba loo tukanaya markuu waqtiga fajarka soo dhawaado inaad salaada dhamaystirta rabto hal ragcad baa tukanaysa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran habeenkii salaada aad tukanaysaan witr yaala habeenkii salaadaa la tukanaya aad bay u fadli badan salaatuleyl sunnooyinka la tukanayona salaatuleylkaasa u fadli badan leanna habeenku waa waqti la hurdo waa waqti qaflo lagu jiro habeenka gelinkiisa dambana waaba waqti ilaahay subxaana wa tacaala ducada uu aqbalo waxaad weydiisato ilaahay wuu ku siinaya dembi dhaaf haddaad weydiiso wuu kuu dhaafaya haddaad ilaahay barido wuu ku ajiibaya haddaad xaajo weydiisatana wuu ku siinaya habeenkii waa waqti cajiiba cibaadada habeenkii lagu dada salaatuleylka habeenkii sunnada habeenkii la tukada habeenkii tukada buu nabigu leeyay walow ragcatayn baa laga dhigay cabdullaahi bin cumar saxaabigii la ohan jiray ayaa ru'yo wanaagsan buu ku riyooday markaasuu walaashii xabsu u sheegay xabsa bintu cumar oo zawjadii nabiga xabsaa markaa nabiga u sheegtay sala allahu calayh wasalam cabdullaahi baa sidaa ku riyooday wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam cabdallah rajulun saalix low kaana yusallii bileyl ninkaa nin wanaagsan wey laakiin inuu habeenkii tukada aada fiicnaan lahayd nin dhalinyaro ahaa markaas weliba waktigaa laga soo bilaabo weliga habeenka wax yarun baa seexan jiray waxaa loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin intuu habeenkii seexday subaxii qoraxda ugu soo baxday ninka waxaa xalay suu u socday qoraxdaa ugu soo baxday daaka rajulun baala shaydaanu fii uduni kaas waa nin shaydaan dhegta uga kaadiyey buu nabigu calayhi salaatu wasalaam laanna shaydaanku cadow buu nagu yahayo markaa habeenkii aan seexano wuxuu nabigu leeyahay يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد قفكم مركوها بين كيس يحضر شيطان كصدح قنتمود مقالات كيس قنتيا تيلا أركبه وحوليها عليك الليل طويل فرق هبين دار ما كان الليل كساحه فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة هدو انتو صوتوس إلهي حسو قنتم بافر ميسو وإذا توضع انحلت عقدة هدو ويسيستو قنتم لبعض بافر ميسو وإذا صلى حلت عقده كلها هدو تكدو صلاة الليل تكدنا قنتميه سوى بافر ميسو تاسو صبح يسوى فرح سنة طيب نفسه وأبو بريا هدي كان وكوابري سنة يأسوى كسلان وخبيث النفس قنتميه شيطانك أكو حرن دي marka shaydaanku waa cadow habeenkii qofku waa inuu ka caadayo shay inuu tukanayo habeen sunnada witrka leena way fadli badan tahay hadduu qofku habeenka soo kacayo inuu gadaal u dhigtaa fiican hadduuna habeenkii soo toosayn inuu aaminahay inuu soo toosana markuu cishaha tukadaba hore inuu ka tukadaa fiican sunnada duxada la yidhaahdo barqinkii la tukanayo way fadli badan tahay salaatu duxa ama sunnatu duxa qoraxdu markay soo baxdo ilaa duhurkii laga gaaro inta udhaxaysa la tukadaa yaa la tukadaa sunnadaas waa sunno fadli badan uu ku dadaali jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam weligii kama tegin sunnada duxada la yidhaha qofku markay qoraxda usoo baxda waagu u baryo xibin kastoo xibnihiisa ka mida sadaqaa lagu yeelanaya sadaqaa lagu yeelanaya qofku wuxuu ka kooban yahay 360 xibnood buu ka kooban yahay subax kasta markuu waagu kuu baryo qoraxda kuu soo baxdo 360 sadaqaa lagugu yeelanaya haddaad adkaar la timaado laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah haddaad adkaarta la timaado bicadadiha sadaqadaa waa ay ku gudaysaa waxaa kaa gudayoo kale 2 ragcadood oo duxaa haddaad tukato 2 ragcadood oo duxaa haddaad tukato xadiiث qudsi waxaa ku soo aroortay إلهي وحوليه سبحانه وتعالى يا ابن آدم صل لي 4 أول اليوم ما علمت أول كذا 4 ركعات وديتك
waxaan kaa kaafinayaa maalinta aakhirkeedaan kaa kaafinaya. sunnada duxada la yidhaha way fadli badan tahay. 2 ragcadood baa u yar, 8 ragcadoodna way u badan tahay. sida axaadiista aksarkooda ay ku soo aroortay 8 ragcadood baa u badan, 12 ragcadoodna way soo aroortay, riwaayadka qaar way ku soo aroortay. laakiin aksaru riwaayaat waxaa ku soo aroortay 8 ragcadood inuu nabigu tukan jiray sala allahu calayhi wasalam. marka haddaad 2 tukato, haddaad 4 tukato, haddaad 6 tukato, haddaad 8 wada tukan karto, sunnada duxada la yidhahda ku dadaasha aad bay u fadli badan tahay. salaadaha sunanka qofku inuu ku dadaalo, sunnada in guriga aad kula dadaasho. weliba sunnooyinka markaad tukanaysa salaadaha sunnada gurigaad ku tukanaysaa si ehelka iyo ilmuhu ugu tarbiyoobaana u bartaan salaada. gurigaad salaadaha sunnada oo dhan ku tukanaysaa, leanna salaadaha sunnada guriga ku tukadu nabigu calayhi salaatu wasalaam. guryihiinana ha ka dhigina qubuurtoo kale, qubuuroo kale ha ka dhigina, guryaha ku tukada sunnada. salaadaa ku barakoobayso, gurigaa ku barakoobayo, ehelkaa ku tacliimayo, salaada aad guriga ku tukanayso. haddaad weligaaba aad guriga ku tukanin, masaajidka unbaad aadaa, masaajidka unbuu kusoo tukadaaya, asagoo guriga ku tukanayaba lama arkin. ilmaha say u baranayaan salaada, say u baranayaan waa inay salaadaada bartaan oo guriga aad ku tujiso, ilmaha guriga ku tarbiyayso, salaada sunnada aad guriga ku tukato. waxaa yidhi saxaabiga Abu Hurayra la oran jiray, waxaa yidhi habeenkii gurigiisa habeenkii oo dhan salaatuleyl baa laga tukan jiray. habeenku 3 qaybood wey. 4 saac ugu horeeya asaga iyo xaaskiisa iyo gabar uu asaga dhalay yaa habeenka 3diisa qaybood ayay qaybsanayeen. 4 saac ugu horeeya qof baa tukanaya, uu saxanaya, 4 dhexana qof kalu toosinaya, 4 u dambaysana qof baa tukanaya. marka guriga Abu Hurayra habeenkoo idil salaad baa ka socotay laga tukanaya. gurigaas inuu guryaha la mid noqonayo ma malaysa? miyuu la mid noqonaya? waa guri caawa dhan salaad laga tukanayo oo ilaahay loo sujuudsanayo, ilaahay loo sujuudsan yahay, oo ilaahay lagu baryayo subxaanahu wa tacaala. waa guri masjid aad u malaynayso saacad kasta lagu tukanayo. gurigu waa inuu guri cibaado noqdo. cibaadada inaan ku dadaalno wey walaalayaal. salaada inaan ku dadaalno wey. salaada mas-uuliyadeeda inaan garanno wey. salaadu siday ahaydna waa inaan u tukanno. salaada aqoonteeda iyo cilmigeeda waa inaan ku dadaalno. salaadeenu waa inay noqoto dadku yacni salaada waxaa jirto yacni waxay salaada ku ansaxayso. sixatu salaad iyo qabuulu salaad waa kala labo. salaada ansixideedu waa in arkaanteedii iyo shuruudeedii la kamilo, mubdilaadkeeda waxa burinayana laga ilaaliyo. waa sixatu salaad. sharcigu taasuu ku faraya, aqbalka ilaahay baa leh. laakiin salaada ansixideeda waa inaad ku dadaasho. ansixideeda waa inaad ku dadaasho. salaada cilmigeeda waa inaan baranno. adduunyada markaan camalkeeda samaynayno inaan qofku uu isku dayaya inuu ku dadaalo. hadduu adduunyadiisa inuu halleeyo ma rabo, waxa uu leeyahay inuu iska halleeyo ma doonayo. laakiin salaada qof la arko anaga naga mida salaadii waa naqaanaa un. salaadu waa 5 salaadoodoo dee duhurku 4 ragcadood wey, casrkuna waa 4, maqribku waa 3, cishuhu waa 4, salaadu fajarkuna waa 2. de anu waan garanayaa salaada. mana salaad ii sheegaysaa oo qofku ku leeyahay. hadda ninkaa saxaabiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadan tukanina tuka uu ku yidhi, qof anaga naga mid a haddii la yidhahdo maadan tukanina tuka, muxuu oranayaa? war salaada maadaa igu leh, salaadeeda shuqul kuma lid uu ku leeyahay. maadaa igu leh, ma ilaahay baa kugu leh, laakiin toosi. oo qofka salaadaada toosi ku yidhi maaduu kuu naseexaynayaa mise? salaadeena waa inaan ihtimaam siino. salaada waa inaan ku dadaalno. salaada waa inaan dareenno sida ay tahay, sida rasuulka u tukanaya sala allahu calayhi wasalam waa inaan u tukano. siduu u tukanaya wayna soo gaartay, kutubtay noogu qoran tahay. saxaabadii baa soo naqilay, taabiciintii baa ka soo naqilay, taabicu taabiciintii baa soo qaaday, salafu saalixii baa soo qaaday, ilaa ay anagana soo gaartay. siday ahayd baa naloo soo gaarsiiyey, laakiin siday ahayd inaan u qaadanaa la doonayo.
diinta waa inaan ihtimaam siino barashada salaada waa inaan ku dadaalno salaad aan cilmi lahayn ma ansaxayso salaad aan cilmi lahayn salaadu ma noqonayso waa inaan ku dadaalno walaalayaal salaada salaadu waa diinteenni haddaan salaada ku dadaalno diinteenni iyo islaamkeenni baan noolaynay oon toosinay haddaan salaada dayacnana diinteenni oo dhan baan duminay salaada waa inaan ku dadaalno walaale oo weliba cilmigeeda ku dadaalno salaada cilmigeeda waa inaan ku dadaalno oon baranno salaada إلهي سبحانه وتعالى هنا وافجي خيرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا مدرودا ولا محروما اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدينتي مشايخدي معلمينتي دي جل فردوس الله وبشارين حبيبك الله وبشارين علمك او نو اخريو صلاه ugu horeysan الله noo fuuday waxa la wixii ilaahay raali ka yahay oo ilaahay nacam الله noo fuuday salaada ugu muhiimsan noo fuuday oo masaajid soo amal Allah naga yeer oo meel dhow ka yimaado Allah naga yeer oo meel dheer ka yimaado Allah naga yeer meel walba mutaan salaada ku soo amal Allah naga yeer waalidiintanadii mashaayikhdanadii macallimiinta diinta Allah u naxariisto ilaahay khayr maanta Allah نصيب maanta Allah naga xijaab dadka Allah noo amiro dadka Allah noo soo amiro dadka Allah noo xifdiyo ilaahay di khayr oo Allah nasiib علمك الله نوفره علمك الله نوفره وادنا ودين علمك الله نوفره حبيبك الله نوفر بشارك يديس الله نصيب يديس الله نصيب حلكيس الله نصيب شفاعتيس الله نصيب حضوركيس الله نصيب إلهي إذا خميسك النبي الله نكل خميسك النبي الله نكل حبكيس قلبك الله كبير قلبك الله كبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه